George Washington waxa uu ku dhashay beerta aabihii sanadku markuu ahaa 1732 waxaana uu markiiba ka qayb qaatay dagaaladii u dhexeeyay Faransiiska iyo Ingiriiska isagoo guursaday haweeneydii hantilahayd lagu magacaabay jiray Marta taasoo ka dhigtay ilaa iyo hadda inuu yahay madaxweynaha ugu lacagta badan ahaana ninkii lahaa adoomaha ugu badan 1775 ilaa 1783 waxa uu geesi qaran ku noqday dagaalkii 1778 waxa uu hogaamiyey golihii Koongareeska la sameeyay markii loo baahday madaxweynaha kuwaadna waxa laga dhigay George Washington inuu hogaamiyo dalka intii uu madaxweynaha ahaa waxa uu qabtay maxkamadda sare ee dalkaas inuu dhisay golihii ugu horreeyay wasiirada dalka inuu sameeyay inuu dadku u ogolaaday xuquuqdooda sinaata iyo inuu doortay hogaamiyaha dalka in madaxweyne la yiraahdo sidoo kale waxa uu aad u nacbaa inuu kala furo afkiisa maadaama ilkihiisu ahaayeen kuwo wada jiran 1797 waxa uu ka fariistay siyaasadda isagoo madaxweynayaasha dambe u sheegay inaan dalku boqortooyo ahayn ee laga tago 2 sano ka bacdina waxa uu ku dhintay beertiisii Virginia kama aanu tegin wax caruur ah waxaase uga tegay dadka Mareykanka dimuqraadiyad 241 tuulo 26 magaalo 5 buurood